Maxadka Barashada caafimadka Burca Institute ee magaalada Burco ayaa munaasabad u qabtay 111 arday oo dhamaystay kulliyadaha caafimaadka, neersinka iyo shaybaadhka iyo waliba umulisooyinka waxaana munaasabadaasi goobjoog ahaa maamulka iyo macallimiinta wax ka dhigta maxadkaasi barashada caafimaadka ee Burca Institute ee magaalada Burco. Ugu horeyntiinba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxadkaasi barashada caafimaadka ee Burco Faadmo Cismaan waxayna ka warbixisay ardayda ka qalinjabinaysa maxadkaasi barashada caafimaadka ee Burca Institute ee magaalada Burco iyadoona ku dheeraatay ahmiyadda qaranka ay u leeyihiin ardayda baratay caafimaadku waxaana kamid ah hadaladeedii dhammaantii waxaan idin leeyahay hambaliyo xafladda sharafta iyo karaamada leh ay ugu nimo maanta iskuulka waxa weeyaan uu qaan gaaray oo 15 sanadood ayuu jiraa maanta gruubadan ka baxaya wuxuu ahaa dadkii aan ku bilownay neersan waxaa baxaya gruubkii sagaalaad umulisooyinka oo ku xigay waxaa baxaya gruubkii lixaad shaybaadhka oo ku xigay waxaa baxaya gruubkii labaad markii aan bilownay 2005tii waxa ahayd xilligii aynu ka soo noqonay dhibaatooyinkii iyo dagaaladii iyo burburkii nagu dhacay iskuulka markii aan bilownay runtii waxa nala bilaabay nala waday maamulka caafimaadka ee markaa joogay iyo guddida caafimaadka gruubkii ugu horeeyay oo 32 arday ah isla markiiba bayroorka la galay isbitaalka laga shaqaaleysiiyay waxay ka shaqeeyaan imanka ilaa national shaqaalaha caafimaadka adduunka WHO wasaaradda ay madax ka yihiin gobolada ay hogaaminayaan dhammaantood madaxda gobolka hogaaminaysa qaranka wada shaqeysa ayay ka mid yihiin dhammaan xuduudaha Soomaaliland iyo tiimamka wareega iyo buuraha dabadooda dadka ka shaqeeya waa iyaga maxadkeena iyo dadka uu soo saara bulshada sharaf iyo karaamo inay ku leeyihiin macallimiinta wax ka dhigta maxadkan iyo mas'uuliyiin ka socota jaamacadda Burco waalidiin iyo marti sharaf kale iyo ardayda iyagu dhamaysatay maxadkan barashada caafimaadka ee magaalada Burco ayaa ku amaanay dadaalka iyo horumarka fiican ee uu gaadhay maxadka barashada caafimaadka ee magaalada Burco aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga kulliba kalgacal weyn baa ii galay intaas oo arday oo isugu jira nursingkii midwiferygii iyo laboratory oo ka qalinjabiyey College of Health Science Burco maanta farxad weyn bay runtii tahay aad iyo aad waxaan leeyahay idinku bogaadinayaa in aad waxa weeyaan heerkan soo gaadheenna aad dib u gelisaan aqoontiina dalka maanta stage way ka gudbinay si ay u buuxno 100% baahida caafimaadka shaybaarka waddankeena waxaanu ka filaynaa inay ka shaqeeyaan meelan xataa dhakhtar joogin oo dhakhtar ka noqdaan oo hawl kasta ka qabtaan baan u tababarnay insha Allah waan ka filaynaa macallimiintayada iyo maamulkayga sharafta leh oo sidii milgaha iyo maamuuska lahayd na soo tabantaabiyay hayaankii dheeraa ee waxbarasho aabayaal ama adeerayaal waxaan idin leeyahay wixii la idin baray dalka wax ugu qabta dadkana wax ugu qabta idinkuna wax ku qabsada ugu dambeyntiina waxa shahaadooyin iyo abaalmarin la guddoonsiiyay ardaydii ka gashay kaalmaha hore maxadkaasi ee barashada caafimaadka ee magaalada Burco dhankooda ardayduna waxay shahaado sharaf ku maamuuseen macallimiintii wax soo bartay Maxamed Yuusuf Cabdillaahi Maxamed Wardi TV-ga qaranka magaalada Burco.